madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya hogaamiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay dagaalo kala duwan oo siyaasadeed ku hayaan Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlayay sanadkuurada 25aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa isagoo go'aan arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri dawladda maanta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo khayr ee xamarka dhisan ilaa maalintii la doortay ilaa maalinka maanta ah waxa ay weerar joogto ah oo qaawan oo dhinac walba ku hayaan oo ilaa hadda ay ku hayaan qaranka Soomaaliland dagaalada laga sheekeeyay waa joogto dagaalka dhaqaale waa joogto kacwada qabatay waa joogto ka propaganda waa joogto waxa la yaab leh oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku gaadho waa la waayay Soomaaliland sodonkiisa ama 40kiisa oo dhawaad u dambeeyay dagaal dawladeed ku jirtay waa ay wada digtay aqliga toosan Soomaaliland maanta meel joogto waxay maanta inay qoriga inta tan la gaaro tashato laakiin waxaan arkayaa dawladda maanta xawr ka dhisan ee baydhabo wareegaysa dadka kulaynaysa ee kismaayo u samaysanaysa ee Puntland dibadda ay kaga baxsatay ee Soomaaliland dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya cadow shisheeye ah ciidamada qaramada dawladda ay ilaalinayaan ee qaramada midowga dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaaliya ka mudnaansay laakiin Ilaahay waxa lagu rajaynayaa Ilaahay fidmadeedu laga nabadgeliyo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay sida ay ku dhici karto ama ay ku qabsoomi karto doorashada baarlamaanka Soomaaliland taasi oo dhawaan golaha guurtida Soomaaliland muddo kordhin u sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray xisbiyada qaranka Soomaaliland waxa uu ku baaqay in ay ka shaqeeyaan sida doorashadaasi u qabsoomi lahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo mar kale arrintaasi ka hadlay waxa uu yiri doorashada hadda loo waayay inoo qabsooto December sanadkan walaalayaal haddii aynaan doorashooyinka dimuqraadiga ah gelin haddaynaan golayaasheena waqtigooda dooranin haddaanay golayaasha doorasho noqon taladu way naga xamaaraysa taladu wadaagay ku wanaagsan tahay cun iyo cun bay ku wanaagsan tahay maanta labada gole ee guurtida iyo baarlamaanka iyo dawladda hoose dad badan baa u sharaxa dad badan baa doonaya inay soo galaan oo ay bedelaan dadka muddo dheer fadhiyay xaq bay leeyihiin waa inuu xaq wada siinaa xisbiyada qaranka waxaa waajib ku ah inay xalliyaan wixii dhibaato ah ee iyaga khuseeya ee doorashada ku gudban diyaar baan ugu nahay dood kasta inaanu xal nabada u doono waxaynu si xalka gaaraynaa xisbiyada qaranka haddaan nahay marka aynu siino mudnaanta inay doorasha inoo qabsooto ku gudban diyaar baan ugu nahay dood kasta inaanu xal nabada u doono waxaynu si xalka gaaraynaa xisbiyada qaranka haddaan nahay marka aynu siino mudnaanta inay doorasha inoo qabsooto haddaynu mudnaanta siino muran yaro dhexdeeda taagan oo aan gaari mayno doorashada haddaynu doorashada gaari weyno oo baarlamaankeenu 15 fadhiyo oo guurteenu 30 fadhiyo oo madaxweynuhu doona fadhiyo walaalayaal waa isku hormarayna qaranka saara ku dhisi maayo waxaan leeyahay waxyaalaha yaryar ee doorashooyinka hor yaalla waa dhammayn karaa waanaynu dhammayn jiray aynu isugu dhawaado waan dhammayno oo hala eego doorashada ayaan la eego waxa yaga hor yaalla taana inta doorashada ka yidhi dawlad ahaana diyaar baanu nahay xisbi ahaana diyaar baanu nahay in la wada hadlo in la isu tanaasulo in doorashada waqtigeeda lagu qabto oo mar labaad dib inooga dhicin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinaca kalena waxa uu fariin u diray dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo dhawaan uu khilaafso kala dhex galay mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku baaqay mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay xaliyaan khilaafka ka dhex taagan isagoo sheegay dawladda deegaanka Soomaalidu ay tahay meel la wada leeyahay Soomaaliland isbeddelka ka socda geeska Afrika qof waliba isbeddelka dantiisu ka eegaya Soomaaliland danteeda ka eegaysa Soomaaliland isbeddelka wixii u dana ayuu bay ku dhaqaaqaysaa cidii ay wada iskaashan karaan wada kaashanaysaa cidii iskaashan kar waana amaan bay siinaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu maanta meel joogto way dhibaato dagaal baa ka socda Itoobiya waxaan u rajaynayaa in isbeddel ka socda uu noqdo mid horumar iyo nabad ka gaadho ilaahayna ka u fududeeyo isbeddeladu waa horbadan yihiin dawladda deegaanka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa maanta marxaladii mulka dhexdeeda taagan inaad nabad ku xalisaan inaad isku qaataan annaga soo maray khilaafaadka xarunkeeda aan qararaynaa waxaan haynaa way aragnimo dhibaato waxay leedahay
waxaan aanu ku waanaynaynaa madaxda badan ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed in ay arrinta dejiyaan oo waawaan iyo isfaraas ku dhameeyaan waayo iyagoo way ka duwan yihiin Soomaalida kale Soomaalida kale waa dowlad gaar ah Jabuuti waa dowlad gaar ah meel taagan Somaliland Soomaaliya xataa kuwa kale meel ku jira dowlad deegaanka Soomaaliya oo dhan baa ku dhan cid walba xuduud bay leeyihiin wanaagooda wada saameeya hadday dhibaato ka dhacdo wada saamaysaa saa darteed waanu idin soo ducaynaynaa nabadooda ku garab taaganahay إلى أريد هذا الجسام وإلى هذا الكأس أبرتان بعد بدعينا إذا كنا خدم مع الدقي عبد الولي سوبر شي تي في أقرأ ده هرقستان